maanta muuqaalkeenu waxa uu ku saabsanaan doonaa applicationada ugu fiican bishan. soo dhawaada haddaba. Assalaamu calaykum, soo dhawaada saaxiibayaal. waa mar kale iyo taxanaheennii ku saabsanaa applicationada ugu fiican bishanna waxaynu ku soo qaadan doonaa 4 application oo aad ku anfici doona aanad ka faa'iidi doontid wax fara badan. si toos ah aynu bilaabana muuqaalkeena haddaba. soo dhawaada mar kale. haddaad tahay qof jecel wallpaperiska khaasatan kuwa fudud ee quruxda badan, waxaan ku hayaa application aad ka heli karto sawiraan cajiib ah. applicationkan waxaa la yidhaahdaa Abstract. waxaanad ka helaysaa sawiraan leh midabo qurux badan. waxaanad ka helaysaa sidoo kale sawiraan ka badan 300 oo sawir oo 4K resolution. haddaba haddaad jeceshahay sawiraanta wallpaperiska ah, applicationkan Abstract waa abka ugu fiican ee aad u isticmaali lahayd wallpaperis. aynu gudubno applicationka xiga. aynu nimaadno applicationka xiga. haddaad jeceshahay inaad ku isticmaasho taleefankaaga 2 application isla hal mar, tusaale ahaan Facebook iyo Instagram ama Messenger iyo YouTube, waxaan ku hayaa application ku ogolaanaya inaad ku isticmaasho 2 application shaashada taleefankaaga hal mar kaliya. applicationkan waxaa la yiraahdaa Split Screen Launcher. sidaad ka dareemayso magacana, waxa aad split ku samayn kartaa amaba aad ku isticmaali kartaa shaashada taleefankaaga 2 application isagoo kugu sameynaya split amaba ku kala qaybinaya labada app. si aad u isticmaasho, haddaba waxaad soo furataa applicationka, kadibna waxa aad xulataa amaba aad doorataa 2 application ee aad rabto in lagugu sameeyo split amaba aad hal mar wada isticmaasho, tusaale ahaan Facebook iyo Instagram. kadibna waxaad ku dhufataa dhan. sidaas ayaad ku haysataa shortcut ah 2 application, waxaanad ku isticmaali kartaa taleefankaaga hal mar 2 applicationba. aynu gudubno applicationka xiga, noqonayana kan saddexaad. haddaad tahay sawir qaade amaba aad tahay muuqaal duube oo aad jeceshahayna inaad ogaato light intensity-ga amaba heerka iftiinka goobta aad ku duubayso muuqaalka amaba aad ku qaadayso sawirka, si aad u qaado sawiraan qurux badan, waxa aan ku hayaa application aad ku ogaan karto iftiinka goob inta uu leegyahay. applicationkan waxaa la yidhaahdaa Lux Light Meter. waxaanad ku cabiri kartaa ama ku ogaan kartaa light intensity-ga ama heerka iftiinka goob adiga oo u isticmaalaya sensorka taleefankaaga ama dareemaha taleefankaaga. waxaanu ku tusayaa tirada ama heerka iftiinka goobtaas. waxaad u isticmaali kartaa sidoo kale applicationkan si aad u nusqaamiso amaba aad u badiso iftiinka goob, tusaale ahaan guri marka aad ku duubayso muuqaal, si aad u hesho iftiinka ku habboon muuqaalkaaga ama sawirkaaga. sidoo kale waxaad ku arki kartaa iftiinka qolkaaga haddaad u baahan tahay inaad wax ka beddesho. waxaanu ku shaqaynayaa applicationkan indoor iyo outdoor. haddaba haddaad jeceshahay inaad ogaato light intensity ama heerka iftiinka goob, applicationkan waa uu ku anfacayaa. isticmaal haddaba applicationka. intaynan u gudbin applicationka xiga, haddaad ku cusub tahay channelka, fadlan subscribe dheh, notificationkana furo si lagu soo ogeysiiyo muuqaalada cusub. kuna soo dhawaada applicationka xiga. haddaad tahay qof neceb xayeysiisyada applicationada ama website-yada aad booqato oo aanad jeclaan lahayd inaanad arag mar dambe, waxa aan ku hayaa Blockada. Blockada waa application aad ku block-gareyn karto amaba aad ku joojin karto xayeysiisyada taleefankaaga ee kala duwan. tusaale ahaan xayeysiisyada applicationada kuwa website-yada. applicationkan marka aad enable tiraahdo ma arki doontid wax xayeysiisa. sidoo kale applicationkan waxa default ku ah VPN ama Virtual Private Network dhaqso badan oo aad u isticmaali karto VPN ahaan. sidoo kale applicationkan Blockada waxaad ka ogaan kartaa trackerska applicationada kala duwan ee kugu jira. sidoo kale waxaad ka ogaani kartaa ciladaha dhanka malware-ka ah amaba malware running issues. waxaanu ku ogolaanayaa inaad dhammaan ka block-garayso taleefankaaga nooc kasta oo xayeysiisa. sidoo kale waxa aad block-garayn kartaa app khaasa xayeysiinta. tusaale ahaan waxaad block-garayn kartaa xayeysiisyada YouTube.
balse application-kani kuma jiro Play Store oo xayeysiinta uu blogareynayo waxaa jira dad ka sameeya lacag. Sidaa darteed ayaa looga saaray application-kan Play Store, balse waxaad kala degi kartaa description-ka website-ka shirkadda, ama waxaad ku qori kartaa blockada Chrome-kaaga ama browser-kaaga, kadibna waxaad kala degi kartaa halka. Haddaba haddaad iibsatay xayeysiiska ku soo dhacaya taleefankaaga ee faraha badan oona jeceshahay inaad blogareyso, abkan waa abka ugu fiican ee isticmaali lahayd. halkaas inoo joogi doona maanta muuqaalkeena ku saabsanaa application-nada ugu fiican bishan. dhammaan application-nada waxaad kala degi kartaa description-ka ama sanduuqa tusiyaha ee hoose. halkaas ay ku soo gabagabayn doonaa. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar, subscribe na dheh kanalka. haddii aad wax su'aalaha qabto waxaad igala soo xiriiri kartaa Instagram account-iga, linkiga waxaad ka helaysaa description-ka. waa anigoo Khalid Cabdiraxmaan iyo halkan waa Somali Tricks oo idin leh stay